magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay soo martay dagaalo sanado badan ka dhacayay waxaa ku daatay dhiig aad u badan asaatid muqdisho hadda waxay u muuqataa mid iska imaamtay dagaaladii sukay ee qabiilka ku dhisnaa magaalada horumar ayaa ka socda dadka ku noolna waxay noqdeen kuwa nabadda la jaalamba nabadda jecel qabyaalad iyo qurunkeedana iska hilmaamay hasaatee labadii maalin ee la soo dhaafay baraha bulshada ay ku wada kulmaan sida Facebook waxaa laga dareemaya dad hurinaya colaad sukeeya una xiiso qaba in mar kale dalka gaar ahaan magaalada muqdisho uu dagaal ka dhaco qaar badan oo kamid ah dadkaasi waxay yihiin kuwo ku nool qurbaha waxaana dadkan isugu jiraan wiilal iyo gabdho ku baaqaya in mar kale muqdisho uu dagaal ka dhaco muuqaalo iyo fariimo ay dadkan qaarkood soo dhigeen baraha bulshada ayaa aad ii murjiyay neejab badan ay ugu riday waxaan isweydiiyey dadka qurbaha ku nool waxa ay ka faa'iidayaan colaadda xaqiiqdii ma jirto wax ay ka faa'iidayaan dadka Soomaaliyeed colaadda ka dhacda muqdisho iyo gobolada dalka marka laga reebo inay ka faa'iidayaan dambi iyo caro alle oo ku dhacda haddaba waxaan ugu baaqayaa qof walba oo jecel nabad iyo nolosha in ay ka waantoobaan waxyaabaha abuuri karaa in mar kale dalku uu xasarad galo ama dagaalo kale ka dhacaan gaar ahaan dadka qurbaha ku nool ee aanan doonin in muqdisho marba ay nabad noqoto waxaana dadkaas qaarkood lagu tilmaamay inay yihiin kuwa wadamada ay joogaan aan sharci ku haysan amba ka cabsanaya haddii wadanka nabad ka dhaco dalka dib loogu soo celiyo iyo siyaasiyiin iyana macaash doon ah kana faa'iidaya dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacaya muqdisho way socotaa dowladuna way dadaalaysaa horumar badan ayaana socdaa waxaan leeyahay qof walbo dadkaaga dhinac ka raac